waa kee telefoonka hawada ka saari doona dhammaan teleefanada hadda adduunyada yaalla hadday ahaan lahaayeen iPhone-ka, Samsung-ka iyo Huawei-ga iyo wixii kale ee adduunyada yaalla hadda telefoonba. ninka adduunyada ugu hantida badan Elon Musk ee lacagtiisa lagu qiyaaso 297 bilyan ee dollar ee sidoo kale leh shirkadda Tesla ee soo saarta gawaarida ku shaqeysa korontada iyo sidoo kale leh shirkadda SpaceX ee gantaalada hawada u dirta ayaa wax ballan qaaday in sanadka 2022 uu soo saari doono telefoon magaciisa uu bixiyay Tesla Pi. telefoonkan ayaa saddex wax kaga duwanaan doona dhammaan telefoonada adduunyada yaal hadeertaan. tan koowaad waxa weeye telefoonkan ayaa toos waxa ugu xiri kartaa dayax gacmeedka, yacni waxa isticmaalaysaa tiknoolajiyada telefoonka ku jirta oo magaceeda la yiraahdo Starlink. umana baahanaysid shirkad markay isticmaalaysid internetka adigoo meel saxara jooga oo shirkadaha dhan ka fog ayaa internetka si toos ah u isticmaalaysa. arrinta labaad ee telefoonkan uu kaga duwanaan doono telefoonada adduunyada yaal hadeertaan waxa weeye maskaxdiisa ayaa waxay noqon doontaa 2TB. GB waa iska dhigay waa 2TB 2 terabyte ay maskaxdiisa noqon doontaa, yacni de waxa rabtid baa ku shubanaysa. arrinta saddexaad ee telefoonkan uu telefoonno badan suuq uga saarayo iPhone-ka iyo Huawei iyo Samsung-ka iyo wixii kale ee telefoon suuqa yaalaba waxa weeye telefoonkan kaamiradiisa hore maaha tan selfie-ga maaha, kaamiradiisa hore waxay wax ku sawiraysaa 108 pixel, yacni waxay soo saaraysaa qofku sida uu yahay ay u saaraysaa, yacni kaamirooyinka waaweyn oo kale ayay noqonaysaa, yacni xididadaada iyo wax kasta ay soo saaraysaa 108 pixel ayay wax ku sawiraysaa. su'aal yar oo kooban, adiga telefoonkan hadduu lacag qaaliya kusoo baxo diyaar ma u tahay inaad iibsatid? haa mise maya?